بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan doonaya inaan ka hadlo in badan baan dhageystay inanka nuurudiin amba inanta magacayga ma garanaye la baxday soomaalidu aada u haysata waxa ay ku haystaana ay tahay sidaanan u arkayo xaq darre haddaan xabad idinku soo qaado dad badan baa yidhi haddii uu wax lagu sameeyey muxuu naagu noqday okay dad waxaa doonaya inaan uga jawaabo qofku dad baa jira dhibtu markay qabsato kufa oo kaca dadna waxaa jira dad kufa oo siday u kacaan ay adag tahay markaa dadku awal mara amba marka u horeysa isku mid maaha qof walba daaqad buu leeyahay amba wuxuu leeyahay dulqaad uu mushkiladda ku xilayn karo amba uu iskaga difaaci karo dadku isku wada mid maaha talabaad waxa aad tidhaahdeen qowmaluud dad badan baan ka maqlay qowmaluud soomaali haddaan nahay horta diinteenna waxaynu ka naqaanaa cinwaanada ama taytalkaynu ka naqaanaa ma fahano diinteennu waxa ay tahay qowmaluud haddaan idiin macneeyo waxay ahayd rag kufsanayay may ahayn rag u tagayay okay rag kufsanayay waxaanay ahayd xabad milyankii xumaanta ay samaynayeen rag kufsanayay xabad quraatay ahayd wax badan oo xumaanay samaynay because ilaahay uu ka naxariis badan yahay in nin kufsaday uu qowm dhan u dilo uu ka naxariis badan yahay la tahay marka waxay ahayd kufsad wuu jiray laakiin waxa jiray dhac waxa jiray nahab waxa jiray inay aqtulaan waxa jiray dambiyo badan bay sameeyeen xabad baana ka mid ahayd inay ragga kufsanayeen okay وكانوا يقتصبون الرجال ما أهين نين عاشقي amba nin jeclaado u tagay ama nin hormoonkiisii ilaahay uu ka dhigay moor dumar intii uu nin jirki ninka leeyahay maskaxdii naagta le no mu ahayn sida okay taasina waa mid kolka qowmaluud inanka nuurudiin amba inanta nuurudiin waxa ay jeceshahayba ma dabaqdo markaa ka joojiya please inaad ka tidhaahdeen qowmaluud anad idinkuba fahansanaydiin qowmaluud actually sabab nusuul aaya amba sharxigeegii amba whatever waxa kale ee jira waxay yidhaahdeen inaad ku haysatiin soomaaliya inanka amba inanta nuurudiin naasay isku samaysay okay naasay isku samaysay waa waxaan aada ula yaabay siduu qofku naasa iskugu samayn karaa laba nooc buu iskugu samayn karaa one waa inuu ilaahay u dhaliyey qofkani inuu naasa yeesho taasina walilaahi fi khalqihi shu-uun ilaah baa khalqigiisa ku shaqo leh waxaan dhex geli karna maaha talabaad waxa weeyaan in uu dawo qaatay dawo si uu u qaataana dhakhtar buu u tagay bay ka dhigan tahay yurub haddii uu joogo dawada yurub xeer bay leedahay xeer baanay ku fadhidaa dadka aan fahansanayno dhakhtarku xeer buu dawada ku bixiyaa xeerka uu dawada ku bixiyana waxa weeyaan ma u qalantaa qofkani xaq ma u leeyahay mise ma aha ma u qalantaa mise uma qalanto qof kansar qaba dawadii caloosha lama siiyo qofka kansarka qaba dawadii kansarka la siiyaa si loogu daweeyo cudurka qofka caloosha xanuunayso dawadii caloosha la siiyaa si loogu daweeyo cudurka qofka madaxiisa iyo jidhkiisu isdiidaana waa la isku hagaajiyaa oo dawada ayaa la siiyaa qofka amba uu u badan yahay amba uu yahay sida ay tahay okay maaha wax dukaan laga soo iibsanayo kolka naasuu isku sameeyey layskama hadla uun alaa tacqiluun caqli waa la fikiraa sidee u dhacday baa la yidhaa kolkaasaa la hadlaa taasina waa mid marka haddii labada xeer haynu labada dhinacba haddii aad horta ilaahay wuxuu yidhi haddii aad dadka xukuntaan amba aad dad kala dhex gashaan si cadaalad loo xukuma markuu qofku hoogadiisa idiin soo sheegtay oo muxuu meesha u soo fadhiistay oo horta dadka inaga hormaray amba yurub amba maraykanka amba shiinaha amba whatever waxay dhahdaan problemka talking about the problem waa half of the solutionka waa xalka nuskiisi inuu qofku ka hadlaa mushkiladda waa xalka nuskii buu qolka qofku inuu kuu sheegtay mushkiladiisii ceeb anuu uma arko bilcaks waan ku dhiirinaya maxaa kale aan doonayay inaan idiin sheego
kolka haddii uu dhakhtar u qoray naasahaasina xeer buu ku joogaa labada dhinac buu inaga xeer hayaa haddii uu ilaahay u sameeyeyna ilaah baa u sameeyey qof ka hadli kara ma lihin haddii uu dhakhtaru waa dhakhtar kaa cilmi badan oo kaa maskax weyn oo kaa khibrad badan ayaa u gartay oo u qoray han sheeko idinka dhex garo maraan ka shaqaynayey waxaan deganaya magaalada UK laakiin maraan ka shaqaynayay meel Citizen Advice Bureau la yidhaahdo nin baa noo yimiday doonayay inuu naaq noqdo waxaanu ka ashkatoonayay in dhakhtarkiisi uu ka yidhi wax tallaabo oo horta GP-giisa u tagay GP-giisu specialku ku diraya specialka marka lagu dirana specialki wuxuu ka yidhi wax tallaabo aynu samaynaynaa ma jirto 12 bilood ka hor inta aad lagu diro qof madaxaaga kula sheekaysta oo madaxa eega in jirkan problemkan uu madaxa ka yimid yahay dhinac kalena waxa laga qaadaya DNA-taada oo la eegaya sida aad u badan tahay marka waxa soo xalal isku keeno ayaa qaraarka la gaaraa qofkan ma nin baynu nidhahnaa mise naag baynu nidhahnaa taa waxaan idinka jeedaa maaha qaraar maalin iyo habeen intii sidaa loo soo kaco dhakhtarka u tagay sida kordhansa oh please see naag baan doonaya inaan noqdo maanta moodkayga waa sida uu ku siinayo no it's not like that sidaana uma shaqayso waxa kale aan doonaya inaan idhaa soomaaliyey inankan aad baan idinla yaabay aad baad ugu dheerayseen aad baad u dhaawacdeen aad baad ugu xumaateen ugu xumaateen kolkaa ka fadhaysta ka kala hadha dee waa ka intaan baan doonaya inaan idhaa ilaah baa u gartay amba mushkilad bay ahayd uu dhakhtar xileeyey labada dhinacba isagaa ku gartaagan ee ammaan siiya laba kelmadood baan doonaya inaan ka idhaahdo dad common ka soo sameeyey oo aan aad ula yaabay mid wuxuu ahaa dhakhtar sheekh hargeysa jooga oo yidhi waa qowmaluud bla bla muu u tago buu yidhi hargeysa maxkamadda muu maro inta uu bulshada soo dhigayo muu maxkamadda hargeysa maro I don't think inay maxkamad hargeysa leedahay sidaan aqoontaydu tahay dowlad magaalo aan dowlad lahayn inay maxkamad leedahay dee caqligaaguba kuma siinaayo kolka adigu dee maxaan ku idhaa igu salaan maxkamadda hargeysa anu markaan joogay ma arag maxkamad meesha taala laakiin haddaad adu aragtay dabaday soo baxday igu salaan waxa kale ee jirtaa gabadh iyaduna waraysatay oo si aad dadnimada uga baxsan u waraysatay ma u malaynayo inay u jeeday inay xumayso qofkaasi laakiin aad bay uga baxday hawada oo aad baan u dhalancaynaya in ay ka sorry ka tiraa qofkaasi because aad bay u dhaawacay si aad u taabatay si aad bay u xanuunisay qofka marka qofka markaan waraysanayno amba aad doonaysid oo si dadnimo ah loo waraystaa adoo dadnimadiisa ixtiraamaya dadnimadiisa qadarinaya inanta kale aan la yaabay commonkeega iyaduna waxaa ahayd gabadh sacuudiga degan oo tidhi waxaan kasoo ducaynayaa xashka kasoo habaarayaa xashka kolka inantaas horta mar walba waxay tidhaa qofkii la hadlaba maray ishaysteen gabadh maama malyuun la yidhaahda ay ishaysteenna waxay lahayd xashkan kasoo habaaray marka inanta waxaan leeyahay xashka adumaad karaysane ummadda ka fadhayso adiguna ummadda ka fadhayso waadna wareerisay waa kaa intaasan idin odhan lahaa salaamu calaykum inankana ammaan siiya amba inanta iyadan waxaan odhan lahaa hore u mar dhakhtarkaaga haddaad la xidhiidhay I think inaad la xidhiidhay laakiin dhakhtarkaaga la soco soomaalida hadalkooga ha maqlin insha allah waad heli qofku qadariya